dilay hanjabaad culusna u diray xilli uu maantay shacabka Jubbaland kula hadlay magaalada Kismaayo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe oo warfidiyaanka kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa wuxuu ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaanada maamul goboleedkaasi arrimaha uu soo qaaday ayaa waxa kamid ahaa doorashadii uu ku soo baxay khilaafka kala dhexeeyay fiila Soomaaliya xariga wasiirka amniga Jubbaland go'doonka la geliyay Kismaayo arrimo kale shirkiisa jaraa'id ayaa waxa uu ka shifay arrimo kala duwan kuwaas oo qosaya xaaladda siyaasadeed ee dalka isaga oo madaxweyne Farmaajo ku sifay dambiile una sheegay in ay dacwad ka gudbi doonaan hadaladiisana waxa kamid ah Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan oo xilligii gobonimo doonka xilligii xorriyadda ay qaadatay halganka xilligii kacaanka waqtigii burburkii dagaalka sokeeye iyo xilligii aduudka iyo dib u heshiinta iyo soo celinta qarannimadii Soomaaliya dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay laga bilaabo aakhirkii 90 ilaa 91 wuxuu soo socday muddo dheer oo qaadatay waqti oo Soomaalidu dagaalkaas sokeeye uu gaaray seedi iyo sodon iyo afar iyo eedo iyo habareer midna inaan la badbaadin waxaa bilowday oo intaa istaagin dad Soomaaliyeed oo damiirku ku jiro oo raadinayay mar walba Soomaaliya xaaladda ku jirta in dib u heshiisiin laga galo la isu keeno Soomaaliya la soo celiyo lagu soo celiyo saaxada ay loobaan dhibaatadii dhacaysa la joojiyo taasi waxay keentay markaa shirarkii ugu horeeyay Jabuuti iyo markii laga soo bilaabo in la isu geeyo Soomaali oo la war Soomaaliyay roolintii loo dhigay xageen joognaa maxaan haynaa maxaa inoo dana ay keentay markaa in la soo aaduudo bal Soomaali haykal dawladnimo oo ay ku heshiin karto in la isugu yimaado shirkaasi wuxuu dhalay in raad uu ka soo baxo waad garan kartaa markaa xilligii shirkii carta uu dhacay dawladdii TFG ee xilligaa la soo magacaabay shacabka Soomaaliyeed rabitaanka dawladnimo sidoo ku ahaa iyo ilaa meesha u soo baxeen iyo si uu soo dhaweynayeen macaalasaf waxay ahayd tallaabo hore loo qaaday laakiin mayna noqonin sidii rabitaanka shacabku u ahaa inay u gaadho waxaa ka dambeeyay shirar badan oo ka dambeeyo kii Imbagati oo lagu soo dhisay haddana dawladdii TNG-da markaa ka bacdi waxaa la yimid in la dhiso 2012kii dawladdii rasmiga ahayd ee federaalka Soomaaliya oo shirkeedu uu ka dhacay doorashada Muqdisho oo lagu dhisay dawlad rasmi ah waxaa ka horeeyay kii Jabuuti ee la isku daray muqaawamadii iyo dawladdii TFG ee xilliga TNG ee jirtay xilligaas dawladdaas la dhisay 2012kii ee rasmiga ahayd waxay qabatay shaqo badan oo ay ka mid ahayd inay dhammaystirto federaalkii Soomaaliya nidaamkii federalismka ah oo markaa ay keentay in isteediyadii la dhiso oo nidaamkii haykalkii federal systemka ahaa gacmaha lugaha loo taago taasina ay u noqoto sabab in dagaalkii shabaabkuna guulo badan laga gaadho dhulkuna isu socod uu gaadho ay gaadhay arrinta amnigu xataa markii ay dhacaysay doorashadii 2016 ee federaalka la isu diyaarinayay ninka musharaxa ama mas'uulka ah ee jawhar kursigiisu yaallay shaqadu raadsanayay inuu intuu ka lugeeyo gaarigiisa qaato drive gareeyo inuu ilaa iyo Muqdisho iyo jawhar inta u dhaxaysa oo dhulka marayo oo soconayay waxay gaadhay in laga fogeeyo shabaab deegaanadii ay hayeen magaalada Muqdishona si dhammaystiran ay isugu furanto dawladdaas waxaan oran karaa waqtigeedu dhamaaday iyada oo ay taagan tahay systemkii federaalka ahaa dawladnimadii aan ku meel gaar ahayn beeshii caalamku ay soo wada jeesato ay noqoto doorashadii ku xigtay 2017kii inay ka dhacday Muqdisho si nabada iyadoo ay tahay maxaa ka dambeeyay waxa ka dambeeyay ee dhacay waxay noqotay dawladdii xilligaas lagu rajada weynaa 2017 wadanku xagee buu aaday xagee buu u socdaa muxuu gaaray muxuu noqday su'aal waxa weey meesha in la isweydiiyo u baahan waxaa lumay oo la waayay dhammaan amnigii oo burburay oo ninkii u kala lugayn jiray Muqdisho iyo Jawhar gaariga u kala qaadan jiray siyaasiga ah
ay ku adkaato muqdisho dhexdeeda in wax ka qabto ay noqoto in madaxtooyada duqeyntu ay ku socoto ay noqoto qaraxyadii ugu badan inay muqdisho ka dhacaan ay noqoto in la waayo dowladnimadii iyo amnigii iyo kala dambeyntii in caasimadda laftirkeeda dhibaatada ay qalkaas ka gaadho waxay noqotay inuu burburo haykalkii dhismo ciidan ee waddanku iska lahaa ood garanaysaan maanta meesha uu taagan yahay waxay noqotay in la waayo sistamkii federaalka ee dowladdii 2012kii la doortay ay soo dhammaystirtay in maanta kulligii dib loogu noqonayo burbur iyo raad aan jirin ay dib ugu noqoto waddankii uu kulligii dib u noqonayo ay noqotay in raadkii dib loo qaado waxay noqotay cunaqabatayn dhaqaale oo waddankii oo dhan lagu soo rogo laga bilaabo somalilan iyo ilaa inta kale oo mid walba sidanaan rabnaa sidan ma tahay hadday noqon weyda maxaa annaga danno ah inay noqoto waddanka in kulli dib loogu celiyo waxaan odhan karaa waxay noqotay mid lagu hungoobay oo wuxuu dadku ay tiirsanayeen iyo amaashoodii lumisay oo ay noqotay wixii laga raadinayay waxaan ahayn inay meesha ka soo baxeen waxaa timid jubbaland iyo dhismaheedii jubbaland waa deegaan soomaaliya ka tirsan oo ka kooban 3 gobol oo ah gobollada jubbada dhexe iyo jubbada hoose iyo gobolka gado markaan ka soo qaadnay deegaanka maanta aan joogno wuxuu ahaa meelaha soomaalida qof waliba uu ka fakarayey ee uu isweydiinayey dagaalka sokeeyana inuu ugu dambayn doono dhibaatada soomaaliyana inay noqonayso meesha xalkeeda in la gaaro ay ugu adkaanayso sababtuna waxay ahayd wada noolaanshaha dadku mujtamacu ku wada nool yihiin iyo damaca dadka ku dhex jira ee qolo walba iyada uu damaceedu yahay lahaanshaha ay sheeganayso iyo sida ay iyadu u rabto inay wax ugu noqdaan taasoo shabaabkuna ay tahay meesha uu ugu badan yahay sababtoo isagoo mar walba qadarinaya wada noolaanshaha bulshadaasi inay tahay waxa keeni karaya in dadka la isku diro lagu dhex noolaado beelaha la kala dhex galo la iska hor keeno iyo juqraafikali nooca deegaanku u dhisan yahay u ogolaanaya inay ama ku dhuuman karaan ama ku noolaan karaan ama ay siyaalo badanoo noloshooda kalifaysa ay ugu jiri karaan caqabadda markaa qof waliba uu sugaya waxay ahayd inay arrintaas xalkeedu uu adkaanayo oo noqonayo gobolka ugu dambeeya laakiin ilaahay baa iskale mahadda subxaana wa tacaala dadka reer jubbaland way tashadeen ciidamaha loo tababaray way isku soo tashadeen dagaallay qaadeen inta badan deegaanada marka laga reebo jubbada dhexe gobolka gado iyo jubbada hoose intiisa badanba waxay noqotay in lagu xoreeyo dagaal ay dadku isku tashadeen iyadoo ay jiraan dowlado iyo dad caawinaya haddana dagaalkaasi uu noqday inuu sidaa ku dhaco kismaayo oo ahayd mixwarka dagaalka ama gundhiga u ahayd meesha dagaalku had iyo jeer ka socda siraaca la isku haysanayay waxay noqotay dadkii reer jubbaland markii ay yimaadeen ciidamadu ee la soo galay waxa ay ka shaqeeyeen ee ugu muhiimsanaa wuxuu noqday in dib u heshiisiin la sameeyo sistem dowladnimo oo loo dhow yahay oo maanta jareer iyo jileec iyo baajuun iyo carab iyo qof kastoo soomaaliya uu xuquuqdiisa ku leeyahay qof waliba xuquuqdiisa iyo matalaadiisa uu ku yeelanayo oo qof walba maanta meel uu ku qancayo oo kusoo hagaagaya ay noqoto la isku dayo inaan isku dhabarjabinno in la dhismo jubbaland oo dadku ay leeyihiin kaasoo macnihiisu yahay inuu fudaydiyo ama uu sahlo wada noolaanshaha dadka iyo isku dhex jirka iyo jacaylka iyo kalgacaylka dhexdooda ka jira taasi waxay guul u noqotay soomaalida oo dhan oo u aragtay mar haddii deegaankanba lagu heshiiyey oo nabadani ay ka jirto oo isdhexgalkani uu ka jiro oo qof waliba maanta uu matalaadiisa helayo alla ilaha soomaaliya dowladnimadeedu way si ambaqaadi kartaa taasaa waxay keentay markaa dhismihii jubbaland inaan dhisno oo marxaladdii koowaad iyo marxaladdii labaadoo hadda la gelayo ay noqoto xaaladda laga gaaray sidaa inay noqoto dhibkii laga soo maray oo ahaa in shabaab laga xoreeyo deegaanada oo ahayd in dib u heshiisiin dadkii loo sameeyo la isu keeno oo ahayd in raadkii argagixisada la baabi'iyo waxaan filayaa deegaanada aan dagaalka ku soo maraynay
waxaanu ugu imanaynaa calan madow oo ka sulan markaasaa intaanu bedelayba waxaanu ku bedelnay calankii buluuga ahaa ee santa gees lahaa ee jamhuuriyadda soomaaliya ay lahayd waa wax taariikhi ah oo taariikhdu aqriso ma in tuulo iyo ceel la qabto oon calan ka sugnayn muuna jirin calan walbana waxaa lagu bedelaya kii jamhuuriyaddu ay iska lahayd ee dadku u lahaa waxaa la dhisay dhismahaas jubbaland oo noocaas aan idiin sheegayo loo soo maray waxaa jiray shirkaa ugu horreeyey markii la qabanayay xilligaa dowladdii jirtay ee rasmiga ahayd wax badan oo iska horimaad siyaasadeeda baa jiray taasaa waxay keentay markaa inay jirtay inkastoo markii dambe dib looga noqday in abaabul badan oo qaabdhismeedka looga hadlayay uu jiro ay keentay in rag badani ay isku dayaan inay sheegtaan ilaa 5 madaxweyne oo nin walba ismagacaabay laakiin ay noqotay gobashii taallay in qof walba intii laga daba tago la keeno lagu soo daro systemka maantana qof walba la garanayo meesha uu joogiyo maqaamka uu ka leeyahay Jubbaland oo ay noqotay dib u heshiisiin dhaba oo qof walba loogu yeedhay oo qof walba markii dambe uu garaystay aleelaha waxa uu isagu leeyahay yaa midana iyadana sax u ah waxa ayaan daro noqotay markaa dowladdii federaalka ahayd ee 2017 inay guud ahaan baal martay waddanku waxa uu ku jiray iyo wixii la soo maray waxaa nasiib darro ahayd aragtida Kismaayo markaan soo galaynay waxaan wadanay meyd iyo dhaawac nin markaa Starbucks fadhiyo kafee cabayay oo aan garanaynin waxa lala soo maray iyo waxa jiray inuu maanta ilaa waddanka oo dhan raad baan dib ugu celinaya waa ayaan darro aad baa arrin u noqota waxay soo celisay dowladnimadii burburkii dowladnimadii Soomaaliya la dagaalankii federal systemka ahayd iyo jahawareerin iyo al-shabaab oo dagaalkoodii la joojiyo si xoogaysta waxa laga dhaxlay bay noqotay dowladdii 2017 la soo dhisay waxay gaadhay in maanta madaxtooyadii Soomaaliya lala dhacayo hoobiyaha waxay gaadhay istaadiga Muqdisho in maanta hal la dhisay intii la ciidamadii laga saaray cidii dhisi lahayd la yiri lacagtaad ku qaadateen waa inta la joojiya oo shabaab maanta ay kontroolaan ay joojinayaan in lacagta loo shoomayo ay waxba ku soconayn intaas oo dhan markay noqotay waxay dawladdu dib ugu noqotay burbur iyo federal systemka iyo statekaas muxuu jiraa iyo yaa nala socda iyo 2020 seen noqonaynaa iyo seen ku soo noqonaa inay noqoto raadka meesha ay ka bilaabeen wuxuu yahay dagaalka Jubbaland iyo dawladda federaalka ka dhaxeeya waxaan in badan ka hadlay dawladda federaalka ee Jubbaland inuu dagaal ka dhaxeeyo Jubbaland inay jirin colaad ay u qabtay dawladda federaalka bal aan doonayna dawladnimada Soomaaliya iyo raadka ay leedahay in la dhiso oo wixii lagu heshiiyay uu socdo waxaan marar badan ku celcelinay waxa dadka kala hagaya ee la isugu iman kara inay tahay dawladda jirin qof ka xoog badan iyo anaa ay midna inuuna jirin qofna awood iskale isagu inuuna jirin haddii sharciga lagu kala dambeyn waana qofna qof adoon uma aha mana gumaysta kamana xoog badna dastuurka lagu dhaqmo ayay noqotay waxa ugu badan ee annaga iyo dawladda federaalka aan isweydiinayno iyadoo maanta Axmed Madoobe shacabka Jubbaland kula hadlay magaalada Kismaayo sidoo kale waxa uu ku hanjabay in ay jawaab adag ka bixin doonaan haddii filla Soomaaliya ay dhibaatada ka joojin weydo maamulka uu hogaamiyaha u yahay 8 sano ee la soo dhaafay lama oga ilaa hadda jawaabta ay ka bixin doonaan dawladda dhexe ee Soomaaliya hanjabaada culus uu hawada u mariyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe daawada dhageysta intaan waxaan oga barnaamijkii dabagalka wararka waad kala socoteen page YouTube-ka Caasimada Channel fadlan haddii aad page ku cusubteen subscribe noo saar si warbixinadan dambe ula socdaan mahadsanidin